bismillaahi raxmaani raxiim habeen wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada warka habeen ee TV-ga Risaale ee magaalada Muqdisho qodobada ugu waaweyn ee warkeena ku daawan doontaan waxa ka mid noqonaya jahwareerka doorashada ee xilligan Muqdisho ka jira jawi nooce ah ayuu dalka gelin karaa warbixin caawa aad ku daawan doontaan warka habeen ee TV-ga Risaale Puntland oo awood ciidan u adeegsanaysa dadka diidaya isticmaalka lacagta shilinka Soomaaliga iyo saldhig ay ku sugan yihiin ciidamo ka tirsan kuwa AMISOM oo weeraray iyo faahfaahino ka soo baxaya qodobadaasi iyo kuwo kale oo ay ku jiraan wararkii dibadda ee caawa warka habeen ku daawan doontaan u diyaar garooba qodobada aad daawateen iyo kuwo kale oo faahfaahsan aynu ka hormarnay jahwareerka ka taagan doorashada jawi nooce ah ayuu dalka gelin karaa waxa warbixintan soo jeedinaysa wariyayna Shukri Caabi Cabdi waxaa muuqda walaac badan oo laga muujinayo habkay wax u socdaan ee labada dhinac musharaxiinta mucaaradka iyo dawladda Soomaaliya oo wali dhagaha ka fureysanaysa dhaliilaha iyo baaqyada kaga imaanaya dhanka mucaaradka ee ku aadan gudiyada doorashooyinka iyo habkay wax u wado dhinaca kale waxaa jira laba gudi doorasho oo ay kala magacaawdeen labada dhinac musharaxiintu waxa ay ku dhawaaqeen gudi ay ugu magac dareen gudiga badbaadada doorashooyinka qaran gudigaasi oo doortay gudoomiye ku-xigeen iyo xoghayn sidoo kale gudiga lagu muransan yahay ee xalinta khilaafaadka doorashooyinka ay diidan yihiin musharaxiinta mucaaradka iyo qaar ka mid ah maamul goboleedyada ay dawladdu magacaawda ayaa iyana Muqdisho ku doortay gudoon si howlahooda ay u sii wataan gudigan ayaana ku xareysan hotel ku yaala Muqdisho waxaana ka maqan xubnihii heer dawlad goboleed ee maamulada Puntland iyo Jubbaland waxaa gudoomiyaha gudiga loo doortay Cabdulaahi Abiy Nuur halka ku-xigeenkiisana loo doortay Maxamed Ibraahim Cabdulaahi Abiy Nuur gudoomiyaha cusub ee gudiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka Soomaaliya ee dawladdu ay magacaawday sidoo kalena khilaaf badan uu ka taagan yahay ayaa sheegay in si cadaalad ah ay u shaqeyn doonaan haddaba gudiyadan doorasho is barbar socda ma abuuri karaan kala qaybsanaan dalka uu galo waxaa su'aashaasi hordhignay falanqeeye dhinaca arrimaha siyaasadda Maxamuud Ibraahim Cumar marka runtii isbarbardhigaaca isaga ay jiro ay dhinacna ka wadaan madaxda musharaxiinta Hotel Jazeera fadhigoodu yahay dhinacna ay ka wado dawladda federaalka ah waxay muujinaysaa xaaladda Soomaaliya oo bariyahan dambaba laga dareemayo kacsanaan siyaasadeed waxaana cabsi weyn ee bulshada ka qabaan in mar kale dalka uu isqabqabsi iyo dagaalo iyo dib u dhac weyn uu ku dhaco ismaanaafkan isaga ah iyo labada gudi ee isbarbardhigaaca ee la dhisayna waxay khalkhal amni iyo mid siyaasadeed gelisay dalka waxayna bulshada magaalada Muqdisho ku dhaqan gaar ahaan waxay aad cabsi uga qabaan in dalka uu uu ka dhaco dagaal sokeeye taas iyada ana waxay keenaysaa in kalsoonidii lagu qabay iyo jacaylkii loo qabay dawladda dhexe ee Soomaaliya gaar ahaan madaxweyne Farmaajo in bulshada qaarkood ay meesha ka baxdo maxaa yeelay waxaa loo baahnaa doorasho loo wada dhan yahay inuu qabto isla markaasna uu sidii madaxweynayaasha ka horreeyay sidii Sheekh Shariif iyo Xasan Maxamuud oo kale doorashada intay u qabteen si nabad ah xilka lagu kala wareegay asagana haddii asaga soo laabto iyo haddii soo laabanin wax lagu wada qacsan yahay inay dalka ka dhacaan oo dagaal sokeeye uusan ka dhicin taas iyada marka asaga ayay eeda badan fuuli doontaa sidoo kale eeda qayb waxa ka yeelan doono haddii dalkan uu dhibaato galo ama ha noqoto dagaal sokeeye ama wax la mid ah ama dawladnimada Soomaaliya oo dib u dhacdo haddii noqotaba waxaa eeda qayb ka qaadan doono madaxda hore dawladda federaalka iyo meelgaarka ee Sheekh Shariif iyo Xasan Maxamuud oo ayagoo madaxweynaha dalka soo noqday hadda go'aansaday inay dawladda dhexe doorashadeedii oo ay qabanaysay isla markaas iyaguna ay qayb ka ahaayeen ay mucaaradaan isla markaas dalkii ay foodo dhinac ka geliyaan qeeladhaanta doorashada waa mid isdaba joog ah oo dhan waliba ka soo yeeraysa gudaha iyo dibadda beesha caalamka oo iyana dhankeeda
jahwareerka kaga jirta waxa ay marka ku xigta fariimo iyo hadallo ku aadan xal u helidda khilaafka iyo kala qaybsanaanta u diraysa dhinacyada siyaasadda Soomaaliya isku haya. Siyaasiyiinta iyo musharaxiinta mucaaradka ahi xilligan waa kuwa Muqdisho ku soo ururay midna uusan banaanka uga maqnayn safiirka UK u fadhiya Soomaaliya oo ka mid ahaa madaxdii ka qayb gashay shirkii madasha iskaashiga Soomaaliya iyo beesha caalamka ayaa isla mar uu ka hadlayay arrimaha Soomaaliya iyo khilaafka iyo kala qaybsanaanta sii xoogeysanaysa ee haatan ka jirta Soomaaliya. Waxa uu yiri ama uu ku tusaaleeyay waxaan aqriyay buu ka hadlaya dhibaatada iyo qalalaasaha balse horey uma fahmin ilaa aan ka imaaday Soomaaliya. Jadwalkii doorasho ee madaxda heer federaal iyo heer dowlad goboleed ay ku heshiiyeen iyo habraacii doorashada ma aha kuwa habkii loo go'aamiyay u dhaqan galay. Maamuladii Puntland iyo Jubbaland lagama hayo gudiyadii oo dhameystiran. Axmed Madoobe waxa uu ku doodayaa in doorasho ka dhacda Jubbaland ay ku xiran tahay gedo oo gacantiisa soo gasha. aan idin weydiiyo markay Puntland doorashada labada meelood ku qabato ee galmudug qabato ee Hirshabeelle qabato ee Koonfur Galbeed qabato Jubbaland doorashada ma waxay ku qabanaysaa hal meel meelasha kalena ciidan ay dawladdu u dirtay yaa loo dirayaa qabanaya. waxaan rabaa mudane ra'iisul wasaare adiga iyo madaxweynahaaga iyo wasiir ku-xigeenka intaad isku noqotaan hal la qeexo Jubbaland waxay meesha wax ku qabanayso gobolka Galmudug Jubbaland baa mise ma aha xaq ma u leeyahay maamulka Jubbaland inuu qabto doorashada ka dhacaysa gobolka Gedo mise dawladda federaalkii qoraal bay soo saaraysaa ay leedahay gobolka Gedo waanu la wareegnay iyagoo sababeynaya sababta uu la wareegay. waxaan rabaa inaan markhaati gashado beesha caalamka iyo ummadda Soomaaliyeedba war wixii aan ku khaldanahay naga qabta diyaar baanu nahay deegaanka ama aan maamulo ama wax kala hala sheego. Waqtigu waa mid isa sii guraya xilliga dawladda u haray waa maalmo fara ku tiris ah ilaa iyo hadda lagama hayo xukuumadda Soomaaliya hab la isku raacsan yahay doorashaduna ay ku dhici karto. Jahwareerka ka jira hoteelada ay labada dhinac ku shirayaan iyo jawaabaha ka soo baxaya jabi noocee ah ayay doorashadu ka dhigi karaan waa su'aasha qof waliba uu isweydiinayo. Puntland ayaa awood ciidan u adeegsanaysa dadka diidaya lacagta shilinka Soomaaliga sida uu ku waramayo waryaheena Aweys Bashiir. Qaasim Maxamed Cabdi gudoomiye ku-xigeenka gobolka Nugaal ahna kusimaha gudoomiyaha gobolka Nugaal oo la hadlay warbaahinta ayaa waxa uu sheegay in cidii uu hogaansimi weydo amarka wasaaradda maaliyadda ee Puntland iyo kan maamulka gobolka Nugaal ee la xiriira xirnaanshaha xarumaha ganacsiga magaalada Garowe iyo deegaanada maamulka Puntland laga qaadi doono tallaabo sharciga waafaqsan. 4 saac wixii ka dambeeyay ayaa waxa uu sheegay in aysan aqbali doonin inay xirnaadaan goobaha ganacsiga ayna booqan doonaan cidii waqtigaas ka dambeeyay laga waayana ay maxkamad la tiigsan doonaan kala noqon doonaan shatiyada ganacsiga. waxa uu sheegay in arrinkaani loogu gon leeyahay isticmaalka lacagta shilinka Soomaaliga in dib u soo laabto maadaama muddooyinkii ugu dambeeyay waxa ka ku yimid isticmaalka lacagtaasi saameyn xooggan ay ku yeelatay dadka ku nool deegaanada maamulka Puntland hab u badnaatay dadka danyarta ah. markii saaka shaqada aan bilaabayay waxaan amar ku bixiyay meheradii 4 saac kadib xiran meheradaha dhammaan horta in la furo 4 saac ugu damayn markii dadku waa iska soo gurigiiba iska jiraan gabdhaha u badan dadka caruurta wax soo siiyaan dadku cabaarbu soo magaalada ku dameeya cabashadaas markii ay soo gudbiyeen dawladda dhexe way ka soo jawaabtay si muwaadiniinimo oo shacabkeeda iyo dadkeeda bay ku soo celisay jawaab. raydkii Garow waxa lagu soo celiyay dollarka inuu san dhaafin 34 oo gacanta dama lacagtan shirkadaha elektarooniga ah ay diraan oo iyaduna sidoo kale ka qayb qaadanaysay iyadana waxa leeyahay $1.1 wixii loo gaaro laguma diri karo sahalka iyadana dawladdu taasay ka gaartay lacagta Soomaaliga ah oo shilin Soomaaliga oo la diiday oo la socodsiin waayana iyadana dawladdu waxay ka soo celisay dhammaan dawladaha hoose oo Puntland inay ku qaadaan cashuurta shilinka Soomaaliga. arrinta ayaa sababtay marka inaanu nimaadno oo u sheegno fariintii dawladda iyo go'aankii dawladdu gaartay inaan dadweynaha ku soo celino meel fayaaraha uga sheegno meherad walba dul istaagno
suuqyada iyo goobaha ganacsiga aanu tagno dadweynaha ganacsatada iyo dadweynaha kaleba aan u baahino arrintaasna aan ka wada hadlo iyaguna waa naga aqbaleen hadda saa ujeedidba waxaanu taaganahay suuqii ugu weynaa oo fadhi xun dhammaan albaabadii ganacsiga oo dhan waa furan yihiin injidu sidoo kale weeye dhammaan magaalada maanta ganacsigeedii waa isku socdaa waa furan yahay shacabkii iyo dowladdii waa isfahmeen waa isla jaan qaadeen amaamuurtii dowladdana way fulinayaan waana fuliyeen inta badan goobaha ganacsiga magaalada Garowe iyo Boosaaso oo ah meelaha ugu ganacsiga waaweyn ee Puntland ayaa waxa ay ahaayeen muddooyinkii ugu dambeeyay kuwa xiran kadib markii ay aad u yaraatay isticmaalka lacagta shilinka Soomaaliga ah saldhigyo ay ku sugan yihiin ciidamo ka tirsan kuwa amisom ayaa la weeraray iyadoona faahfaahino ay ka soo baxayaan weerarkaasi waxaa ka waramaya warkan wariyaheena Cabdiqaadir Maxamed Jakarta dagaal ayaa ciidamo ka tirsan kuwa amisom gaar ahaan kuwa Uganda iyo Al-Shabaab waxa uu ku dhaxmaray deegaanka Janaale oo ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose waxaana dagaalkaas ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac dagaalka ayaa yimid kadib markay sida la sheegay xubno ka tirsan Al-Shabaab ee weerar ku qaadeen saldhig ciidamada Uganda ku leeyihiin deegaanka Janaale waxaana halkaas ka dhacay dagaal socday muddo dhowr saacadood ah dadka deegaanka Janaale qaarkood ayaa waxa ay sheegay inay maqlayeen dhawaqa rasaasta isku adeegsanayeen ciidamada amisom iyo Al-Shabaab balse aysan cadeyn karin khasaaraha ka dhashay maadaama dadka shacabka ah aysan tegi karin inta badan goobaha lagu dagaalamo isla markaana ay ku dagaalamaan ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa amisom oo dhinaca iyo xubno ka tirsan ururka Al-Shabaab saraakiil ka tirsan ciidamada dowladda ee ku sugan deegaanka Janaale ayaa waxa ay sheegeen ciidamada amisom iyo kuwa dowladda ay ka hortageen weerarka kaga yimid dhinaca Al-Shabaab hayeeshee aysan bixin faahfaahin intaas ka dheer dagaalka ka dhacay deegaanka Janaale ee gobolka Shabeellaha Hoose ayaa waxa uu ku soo aadayaa xilli saacadihii la soo dhaafay oo dagaal ku dhexmaray deegaanka Hosingow ee gobolka Jubbada Hoose ciidamo Kenya ah oo ka tirsan amisom iyo dagaalamayaasha ururka Al-Shabaab nin ka ganacsada dhulka ayaa lagu dilay magaalada Dhuusamareeb iyadoona dilkaasi ay warar dheeraad ah ka soo baxayaan Ali Xasan Cali ayaa ambaqaadaya ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa Galmudug ayaa waxa ay magaalada Dhuusamareeb ka wadaan howlgallo ay ku baadigoobayaan maleeshiyad hubeysan oo maanta nin halkaas caanka ahaa ku dilay magaalada Dhuusamareeb dilka ninka oo lagu magacaabi jiray Cabdullaahi Caabi ayaa yimid kadib markii israsaaseyn ay dhexmartay laba maleeshiyo kuwaas oo isku haystay isqabqabsi la xiriiray arrimo dhul magaalada Dhuusamareeb ayaa si weyn waxaa maanta looga dareemay israsaaseynta ka dhacday oo uu ku geeriyooday nin ka mid ahaa dadka dhulalka ka gada waxaana socda baaritaano lagu baadigoobayo maleeshiyaadkii dilka geystay madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Cabdi Kaariyo Qoorqoor iyo wasiirka amniga maamulkaasi Axmed Macalin Fiqi ayaa kal hore waxa ay sheegeen in marnaba aysan aqbali doonin dagaal beeleedyada salka ku haya isqabsiga dhulka dab khasaare nafeed geysta ayaa ka kacay suuq ku yaala magaalada Jigjiga waxaa faahfaahinaya Maxamed Bootaan Yuusuf dabkan oo geystay khasaare isku jira mid nafeed iyo mid hantiyadeed ayaa waxa uu maanta ka kacay suuq ku yaala xaafadda toddobaad ee magaalada Jigjiga gaar ahaan suuqa cusub ee loo yaqaan Taiwanka goobjoogayaal ayaa warbaahinta u xaqiijiyay in dabka mar hore hal dukaan uu ka bilowday balse markii dambe uu ku faafay goobo ganacsi oo kale waxaana uu sababay geerida hal qof oo ganacsada ahaa iyo gubashada hanti fara badan xubno ka tirsan laamaha amniga dowladda deegaanka Soomaalida oo ugu horeeyo madaxweyne ku-xigeenka deegaanka Soomaalida Ibraahim Cusmaan Faarax iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ku nool magaalada Jigjiga ayaa tagay suuqa dabka uu ka kacay iyaga oo ku guuleystay inay damiyaan مسؤولينta laamaha amniga ee dowladda deegaanka ayaa waxay sheegeen inuu jiro dad ku dhaawacmay dabka kuwaas oo la geeyay isbitaalka weyn ee magaalada Jigjiga si halkaas loogu daweeyo sidoo kalena ay wadaan baaritaano la xiriira sababta keentay dabka dhowr jeer ayaa sidaan oo kale uu dabka ka geystay oo dabka ka kacay isla markaana geystay khasaare nafeed iyo mid hantiyadeed waxaana ka kacay suuq ku yaala magaalada Jigjiga waxaana mas'uuliyiinta maamulka ay sheegeen inay baaris ku sameyn doonaan sababaha dabkaasi uu mar walba suuqa ugu kaco halka warkaasi aad ka daawanaysaan daawadayaal waa TV-ga Risaale ee magaalada Muqdisho markana wararka dibadda qofkii ugu horeeyay ee ka soo jeeda dalka UK ayaa qaatay talaalka cusub ee cudurka coronavirus haweeney 90 sano jir ah oo ka soo jeeda waqooyiga Ireland ayaa noqotay qofkii ugu horeeyay ee qaata talaalka cudurka coronavirus taasi oo bilow u ah qorshaha lagu talaalayo dad badan oo ka soo jeeda dalka Ingiriiska
haweeneydan oo lagu magacaabo Margaret Kenan oo isbuuc kadib u dabaaldegaysa dhalashadeedii 91aad ayaa sheegtay inay tahay hadiyadii ugu wanaagsaneed ee dhalashadeeda. Talaalka ayaa lagu bilaabay dadka da'doodu ay ka weyn tahay 80 sano iyo shaqaalaha caafimaadka. Mashruucan ayaa ujeedkiisu ah in la badbaadiyo dadka ay khatarta ugu badan tahay soo wajihi karto. Waxaan dareemaynaa inaan aad u nasiib badan nahay inaan noqdo qofkii ugu horeeyay ee qaata talaalka loogu hortagayo cudurka COVID-19. waa hadiyadii ugu wanaagsaneed ee dhalashadeeda. Ugu dambeyntii waxaan waqti la qaadan karaa qoyskayga iyo saaxiibaday sanadkan. waxaan muddo badan ahaa qof kaligiis ah ayay tiri Kenan. guud ahaan daawadayaal waan haginta war waxay dalka dibad naga soo gaaray aad ka daawanayseen Risala TV. habeen wanaagsan.